gaashaan la dhahay Cismaan Sheekh Cabdi Qorrax xabaanduulaha guutada tobnaad ee libaax kana howlgasha gobolka Gedo oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Tani Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada Balad Xaawo kala qayb galay munaasabadda 12 Abriil oo ku aastaysan maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka taas oo ka soo wareegtay 61 sano tan iyo aasaaskii ciidanka xoogga dalka kuna beegneed 12 Abriil 1960 ciidankan ayaa ka koobnaa ururada 27 iyo 28 oo ka wada tirsan guutada libaax ee gobolka Gedo iyo ururka Gorgor oo isaguna ka qayb ka ah ciidamada ku sugan magaalada Tani Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Korneyl Cismaan Sheekh Cabdi Qorrax xabaanduulaha guutada tobnaad ee gobolka Gedo ayaa ugu horreyn ugu hambaliyay ciidanka sanad guurida 61 ee ka soo wareegtay aasaaskooda. Sidoo kale Korneyl Qorrax ayaa ciidanka uga sheekay diinteena suuban ee xumaanta ka nasahan sidii uga hadashay la dagaalanka khawaarijta argagixisada ugus. Dhanka kale abaanduulaha ayaa ciidanka xoogga dalka u sheegay in loo diyaar garoobo howlgal lagu sifeynayo argagixisada la iskuguna furayo dhammaan magaalooyinka kala go'doonsan ee ay sida dhuumashada ah ku joogaan maleeshiyaadka gobolkooda dhacay argagixisada ugus. Ugu dambeyn gaashaan la dhahay Cismaan Sheekh Cabdi Qorrax xabaanduulaha guutada libaax ee gobolka Gedo ayaa guud ahaan ciidamada gobolka ugu mahadceliyay shaqada adag ay ka wadaan gobolka kuna dhiirigeliyay inay sii xoojiyaan howlaha qaranka lagu adeegayo. halkaan waxaa diyaar ku ah guutada tobnaad iyo ururka Gorgor. dib waan salaamayaa aad baan salaamayaa ciidanka ururka Gorgor ururka waxa la yiraahdaa 7 iyo 20aad iyo ururka 28 oo halkan ku sugan ee guutada tobnaad ka tirsan aad baan idin salaamayaa waan idin amaanayaa waxaan ku amaanayaa shaqadii dheereed oo aad ma garanaysaa aad soo qabateen ayadoo qaarin kamid ahna Soomaaliya geeskeeda meel kamid ah laga keenay oo halkan ay u imaadeen xuduudooda iyo dalkooda inay difaacdaan halkan ay u imaadeen loo keenay qaar kamid ah ayagana geeska gobolkan hadda aan joogno laga keenay qaarna ay ahaayeen ciidanka halkan hore ugu sii sugnaa oo ayagana diiday mankorka iyo baadilka inay ka qayb qaataan sharafkii karaamadii aad soo hayseen oo ma garanaysaa waxa kastoo isku daya oo qaranka iyaga lagu dabandaabiyeynayo aad ku diideen oo uga hortagteen baan ku ammaanaynaa adkaysiga dheeraa aad samayseen waan kaga hambaliyeynayaa sanad guurida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 12 Abriil waxaa kaloo u hambaliyeynayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo ku sugan yahay saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed baan u hambaliyeynaynaa waxaan leenahay xilligan xilligiisa kala awood iyo midnimo iyo sharaf intaan ka badan Ilaahay noo gaarsiiyay nolol inta kadib ciidanka xilliga la aasaasay waxay ahayd 12 Abriil 1960 bay ahayd xilligan waxaa laga aasaasay ciidan laga keenay ciidanka booliska oo Soomaaliyeed xilliga ka hor sii jiray oo dhowr hormeed oo yar oo la isu keenay oo la soo ururiyo la isu keenay halkaas laga aasaasay waxaa la soo gaarsiiyay awoodiisa heerka ay gaartay oo aad ogsoontiin idinkaba meesha ay gaartay awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahayd in uu hormaray dawladaha Afrika dhamaantood ciidanka u sareeyay inuu noqday marka laga reebo 3 dawladood oo lagu sheegay inay ahaayeen Masar iyo South Africa iyo Nigeria marka 3daas dawladood laga reebo inta kale oo Afrika dhamaan ciidanka u sareeyay ciidanka iyaga ayuu ahaa sharafkii karaamada uu soo hoyayna wada ogsoontiin aad ba u faansantiin dalka Soomaaliyeed meesha uu ku sugnaa iyo isku haleynta ummadda Soomaaliyeed ee qabeen iyo adduunka wuxuu naga aaminsanaa wada ogtiin mar haddii sidaas saraakiisha xilligaa joogtay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay soo gaarsiiyeen heerka intaa leeg annaga maanta waxaan dala ka doonayaa waxaa weeye in annaguna aan heerka asaga ma garanaysa aan gaarsiin waxaan dala ka doonayaa taas ayada oo dalka iyaga sharafkiisa iyo karaamadiisa aan soo ceshan oo sumcaddii faraha badneed iyo nolosha wanaagsaneed oo ka jirtay Soomaaliya la soo celiyo taasaan dala ka doonayaa insha Allah ta'ala waxaan aad u rajaynayaa in lagu baraarugsan yahay maantana ay ku faraxsan tahay cid kasta oo Soomaali ah ay ku faraxsan tahay inuu dhismo ciidanka Soomaaliyeed inuu dhismo dalkooda inay difaacdaan askarta inay u diyaarsan yihiin oo ay ku dhintaan naftooda ku bixiyaan taas waxa weeyaan marka waa mid aan ku hiranayna ummadda Soomaaliyeedna ma garanaysaa aan tusaale fiican ama ma garanaysaa niyadooda ku wanaajinayna way
inaan u diyaarsanahay maanta inaan ciidankeena gaarsiino meesha horey uu u gaaray iyo meel ma garanaysa weliba kasii sarraysa inaan gaarsiino hadduu ilaah yidhaah oo weliba aan ilaashanna maadaama xilliga hore wixii burburiye aan ognahay dowladdeenni wixii burburiye aan ognahay oo wixii burburiye ay ahaayeen xukun jacayl iyo qabiil jacayl wixii naga burburiye dowladda ay ahayd iyo wax la mid oo kale iyo dowlado shisheeye oo dalkeen ma garanaysa faragelinaya oo raba inay burburiyaan iyo dabadhilif dalka dabada kula jiriya wax la mid ah inay ahaayeen maadaama aan ognahay inaan ka waantoobno oo waxaan nala ka doonayaa annagu aan ahaana dadkii ma garanaysaa sii hayn lahay jiritaanka awoodda iyo sharafka soomaaliyeedba intaas waxaan oga gudbayaa inaan oga hambaliyay ciidanka munaasabadda sanad guurada 6aad oo hadda maanta aan ku sugannahay kadib aan ku sugannahay oo uu soo gaaray ciidankeenna waxaa la yidhahday 61 sano 61 sano hadda aan marayn waxaana rajaynaynaa inaan xilligiisa kale aan gaari doonno dalkeennoo gacanta aan ku wada hayno iyo dadkeennoo sharaf iyo karaamo ku wada nool oo cadowga gudahana aan ka saarnay dalka cadowga dibaddana saasoo kale asagana ma garanaysaa uu naga waabsamay oo barnaamijdiisa uu ka aaday intaa kadib waxaan ognahay inaad ciidankan halkan ku sugan uu yahay ciidan dadaal fara badan soo maray shaqo fara badanna soo hayay difaacyadiisana xagsaday cadowgana bannaanka kula soo dirirhay iyo meel kastoo ma garanaysa ay ku sugan yihiinba gudaha magaalada iyo deegaankana ka ilaalinhay waxaan nala ka doonayaa waxay tahay hadda xilligaan aan joogno inaan diyaargarowno nala ka rabaa annagu ciidan qaran baan nahay waxaan xoog u nahayna waxaa weeye inaan dalkaas ilaalinno madaxda qaranka awaamirteedana aan qaadanno weeye dalkan maanta haddii loo dhiiba waxaa la yidhaahdaa 2 madaxweyne ama 3 madaxweyne ama 4 haddii loo dhiiba dalka ma soconay wax dhaqaaqayna ma jiraan laakiin hal madaxweyne inta uu jiro wax shaqo un baa soconaya asaguna waxaa la gaarsiinayaa xilli lagala wareego asaga in la gaarsiiyo weeye insha allahu tacaala waxaan nala ka rabaa inaan u diyaargarowno in howlgallo ay jiri doonaan hadduu ilaahay idmo oo aan sii bilaabi doonno weliba kadibna meelaha fogfog iyo meelo dhadhow aan shaqooyin kasii qaban doonno hadduu ilahay yidhaah waxaan rabaa inaad u diyaarsan tihiin inaad cadowga soomaaliyeed aad la dirirtaan aadna ka difaacdaan cid kastoo duulaan ku ah dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed ummadda shacabka ciddi dhibaataynaysa oo dhanba aad baan kugu mahad celinayaa qoraxda kulul anigu waan inla sii shaqayn doonaa hadduu ilaahay idmo awalna waxaan kusii sugnaa meesha la yidhaahda talis guutada 10aad oo garbaarey ah haddana halkan waxaan u soo gaarinaa ciidanka xaaladiisa aan ogaada waxaan ka ogaadayna waa wixii haddaan ka hadlay oo aan ogaad inay yihiin ciidan aad u wanaagsan shaqadooda gudanaya ku fiican waajibaadkooda qaran haysta kala dambayntooda ismaqalkooda ay fiican tahay una diyaarsan inay ma garanaysaa waajib kasta oo la siiyo ay fuliyaan inaan sii dhammaystirnaa la rabaa marka oo aan adkayn sida loo adkaynayo loo diyaargaroobayo waxaa weeye inuu qof kastoo naga mida waajibkiisa u qaato asaga shakhsigiisa uu naftiisa ka bilaabo wey asaga inuu diyaargaroobo wey ninka hal unug loo dhiibayna unugta inuu diyaariyaa laga rabaa asagana horin ninka loo dhiibay horintii baa laga rabaa ninka ururka loo dhiibayna ururkii baa laga rabaa asagana sidaa inaan u diyaargarowno wey cidda arrinta ayada ka hor imaada oo caqabad iyo culays ku keenta waddadaan u marayna waa la yaqaanaa wax haddaan isu sheegayna ma maxaa yeelay cid kastoo caqabad nagu ah inaan ma garanaysaa aan ka dhex qabanno wey qaranka soomaaliya dhexdiisa oo maadaama caqabad iyo shidda iyo waxyaaba aan loo baahnayn qofka ma garanaysa hadduu la imaado oo ay dhacdaba taas laakiin aniga waxaan is leeyahay ma jirto hadda maanta cid ma garanaysa waajibaadka loogu talagalay aan gudanayno hadday jirtana ayaguna tillaabada sharciga ah oo ciidanka u degsan ayaa ma garanaysa ayaa loo maraya hadduu ilaah yidhaah aad baan iin salaamaya mar labaad iyo mar saddexaadba waan idiin mahad celinaya waxaan ku ammaanaya shaqada hayseen waxaan leeyahay shaqada kor ha loo sii qaada kulamadannada way sii socon doonaan hadduu ilaah intaa way ka sii badan doonaan wax kastoo waajibaad oo shaqa oo nala siiyana waan qaban doonaa hadduu ilaah idmo cabdulaahi macruuf warbaahinta ciidamada qalabka sida magaalada Tani Balad Xaawo ee gobolka Gadow.